waxyaabaha looga faa'iideysanaya waxa kow ka ah in lagu dadaalo udxiyada in lagu dadaalo illa udxiyaysto oo maalinka ugu dambeeya waa maalinta ciidul adha inuu qofku Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaado gowrac ayaa waxa weeye loo baahan yahay waana sadaqooyinka ugu waaweyn ee lala baxo waxa weeye kaash aad u badan inaad bixiso waxa ka qiimo badan oo Ilaahay agtiisa kaga weyn hal neef inaad gowracda ayaa ka weyn oo ka qiimo badan in waxa weeye udxiyada lagu dadaalo sida culimadu u badan yihiin waa sunna ee waajib ma ah laakiin waa sunna muakkada waa jiraan culimada qaar oranaya waa waajib laakiin in lagu dadaalo waxay ka mid tahay noolaynta la noolaynayo 10 kan maalmood la noolaynayo ay ka mid tahay sunnayaasha waxa ka mid ah 10 dhil xijja qofka doonaya inuu udxiyaysto ee 10ku ay u soo galaan waa inuu ku iska ilaaliyaa maalmaha inuu cidiyaha iska guro ama timaha inuu gaabiyo waa inuu soo ekaysiyaa sidii qof xaj iyo umra xidhay oo xarmaday buu ekaanaya iyagu maalintay udxiyada gowracaan maalinka tobnaad markay dhagax tuurka iyo tawaafka sameeyaan timahana ay xirtaan maalinka inuu ciidayno ayaa ninka xaajiga ay xalaaloobaya innagana waxa la inoogu talagalay qofka doonaya inuu udxiyaysto maalinka ciideed bisha kowdeedu markay soo gashaamay ama habeenkii haday bilato waa inuu iska ilaaliyaa cidiyaha inuu iska guro timaha inuu gaabiyo waa inuu iska ilaaliyaa sida waxa weeye nabiga ka sugnaatay alayhi salatu wasalaam xadiidka sahih muslim ka ku yimi ida halla hilalu dhil hijja wa arada ahadukum an yudahi fala ya'khudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a sunnayaasha udxiyadu leedahay bay kamid tahay waxyaabaha la jiideeyo waxa kamid ah la doonaya in lagu dadaalo in waxa weeye 10 ka cisho lagu dadaalo cibaadooyinka kala duwan haday tahay salaada sunnayaasheeda la badsanayo salaada faralka ana xilligeeda iyo jamceeda loo ilaalinayo hadii ay tahay soomka sunnaha la badsanayo waa mid yadana la inoo jideeyay xadiis baa tilmaamayay Aisha radhiyallahu ta'ala anha ay leedahay ma arag nabiga alayhi salatu wasalaam oo 10 dhil xijja sooman waligay ma arag laakiin taa macnaheedu ma aha in la diidayo waayo nabigu alayhi salatu wasalaam hawla waaweyn buu hayay cibaadooyinka la inoo jideeyay bay kamid tahay in lagu dadaalo soomka in lagu dadaalo waxyaabaha lagu dadaalayo waxa kamid ah Allah in la xuso sida Ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay ويذكر اسم الله في أيام معلومات سي الله سبحانه وتعالى وحسان مال من لا يقانه ومال مهن يقع نبي حلي عليه الصلاة والسلام عمل الله سميه إلهي أكتي سوحا أقوين عمل كالله سميه مال مهن فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتحميد سيدا هديتها هلا بضي الله سبحانه وتعالى إلا حسه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يوحيك لا إلهي أتكو حصيص حيابا إلهي اللي حصي وحا أقوي قرآن كيسا إلا لن ولاده وكتابك الله سبحانه وتعالى لا أخريه يدنا وقضية إلهي اللي قد وانا يا آد يا آدوين قرابة إلا حريريه صدقة إلا بتصده الله سبحانه وتعالى إلا توبت كانه كان إسكاين آد يا آد لوغ فايديستو أيين إن شاء الله تعالى وباهناه oo Allah subhanahu wa ta'ala sidaba loogu soo noqdo lana niyoodo maalmahan in laga faa'iideysto